laba nin baa sheekaysatay ciyaal oo Soomaaliya waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo wariga masiibo ma kugu dhacdo markaasuu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay nin waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curad oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhigto marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga warigay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaan masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaan suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subax waagu markuu bariyay aduu nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegnay roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wiiq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaay nool ah soo jira dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimatay marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saasay u jiifaan qortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan mid babarkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo rarooy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay oo dhagay mid xalad dilaaceen qaraxi meesha ka dhacay baa xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaa meydkii tiriyay dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay biyo labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ah baan waayay raadna mara roob baa daay meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan uu yidhi ayuu geed hoosta ka soo xusaan waa fiirshay gabadha way nooshay ma dhiman ayuu soo xusaan tahay haddii baan soo kaxaystay feeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhii baan inta u sameeyay meelaan oo darga camal ah baan saaray haddii baan la dhaqaaqay وانا سجال كذي بعد بعد الواي ما أنا كنتم بان ولا أبوي يرتقي وإسكان ببني يوم مستحيل وحتى عادي مشوا جور عصر يدور رحلة وروح وسديت ساعة يبر ماله حاسة بان وبيجو كوي بدوي وبي مال مران كوي آير بان تك جوادنا فول بقى كل جاي بانا ساعة حتى ما كان سوق بحية كمان فكرين بيجي وجوادنا أما يكوفوا فول تايو وح سكين يمنا موت وحير مرة لما جوادي فوش قبضتين تيجي بان كذا شيء ويل بيد شيء لكن نصيب درة وحن حدونتك كجو يملا جيد بان كفولي بحلات كسر قاستي بحلات كان كجشر حدون وأنا والله جاي بيني عاد وعدكتها لكن نك كشاكيني وأنا عاد وشاكيني يا صو وأنا كلا بلايا إسعاف عرب يعني وما دعوا لي البلايا وغير مركي جوادي أو شيء وحنا أفكار ومسين جوادنا وورثنا يوم نوع كلاي تاي وجواد حلا ورق وكل عدد ضد وركض شو كان كلمتين waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratiga baan bireeyay ayr baratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday gabadhi markay fiicnaatay xogaa indhihi kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribuy ratigaan noo qalay haye ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribuy oo nooga soo dhaamay ratigan kan sii qalay inta qaadatay cheegaan wabiga daq gabadhi mar alla markay istir wabiga aad saa u taabsiisay jeergaankii baalkii cheegii yaxaas baa ku dhigtay markaas aan waxaan arkay cheegii xirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii yaraaba ku soo laabtay hilib male marka qalitaan oo u dhamaatay qofkii oo hilibka u qaliyay gabadha ahayd asagu nolol kuma jirto wixii ilmaha yar baan iska qaatay markii aan gabadhan waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduuban saa u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqay wiilkii yaraa oo aan watay oo aan asnana ku jirin hooyadina ma noogin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuu qaawan yahay asagoo ilmaha yarka wuxuu haystay maraba ku duuduubay ilmuhu ku duuduubay baan waxaan ku warhelay bahal u laho igu dhagtay kor baan u fiirshay gabar inaan ay uulaynayso waxay tirbilaayada reer ariga dhex dhigtay maxaa saas markaan u istaagay oo ay artay inaan qaawanahay bayse siidays way car 5 daqiiqo kadib waa kuwaan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tirbilaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arrintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa mara isaaray biyo ninkuu qaawaya go ibu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay biyo uleysay wada odaygu markuu cunta isii asoo ila hadlay muu tagay yo sheekh iyo niman soo kaxeeyo gabadhi waa la igu meeriyo habeenkii baa aqal baa la geeyay
haddeer buu yiri ninkan markuu u sheekaynayo dhowr iyo 20 ilmood iyo xoolo malaayiin aan leeyahay marka waligay dhibaatay uma dhacin laakiin maalinkaas cirib saartay taasi waxay suurad ka bixinaysaa adduunka noloshu inay tahay aynaan iska sahlanayn marka noloshaada ay kugu dhicin kartaa noloshaas marka waa mid naftaada ku dhacday waxa jiri karta inay balaayadu kaaga timaado ama ku dhacdo dadka ku xigay oo waalidka inay ku dhacdo ilmahaaga oo ilmaha kaaga timaado inay kaaga dhacdo xaaskaaga inay kaaga dhacdo qof adiga kugu xeeran dhibaatadaas waa dhibaato gooni oo adiga gooni ku taabanaysa tii horena maxay dhibaato caam dhibaatooyinka marka mar labaad waa taan waxay u kala qaybsan yihiin mid waqti leh iyo mid aan waqti lahayn oo iska joogto midda waqtiga leh hal qodob baa la iska ilaashaa inaadan ceeboobin waligii ma maqasheen masiibo iyo magacabo maalin bay baxaan dhibaatadu hadday hal maalin la taagan tahay abaar baa dhacday maalinkaas adigu ha harin waxa laga yaabaa inay bari roob di'i doono haddaad marka maalinkaa ceebowdid dhibaatadaas waxay u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso dhahaysid war waxaani waa wax waqti leh oo waqtigaana xallin doonee adigu caadi iska dhig marka inaysan taas kugu dhicin qodobada marka jira si kooban aan rabnay inaan u tilmaano ah qofku waxa looga baahan yahay mar alla markii qofku wax ku dhacaan nolosha qayb kamid ah waa keenay ku cuslaatay qodobka ugu horeeyo oo raba inuu qofku waxa weeyna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun laana masiibooyinka dhan ilaahay baa keena qofku marka inuu isla marka xusuusto oo inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun mar alla markii kugu dhacdo intay leeka rabta masiibadu hal leeka waxa laga yaabaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ganacsi Aisha xadiidka warinaysa waxa laga yaabaa way tiri inta guriga iga danto fariista inuu nabigu dhaho la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka masiibadu intay leeka hal leekaatee qodobka muhiimka qofka waa laga baahan yahay wax